yacquubna wuxuu degay dhulkii aabbihiis qariibka ku ahaan jiray oo ahaa dalkii kancaan kuwanuna waa faracankii yacquub yuusuf isagoo jira 17 sannadood ayuu idaha la daajinayay walaalihiis wuxuuna ahaa wiil la jooga wiilashii bilha iyo silfa oo ahaa naagihii aabbihiis markaasuu yuusuf xaggooda war xun uga keenay aabbahood israa'iilna yuusuf wuu ka jeclaa carruurtiisa oo dhan maxaa yeelay wuxuu ahaa inankuu dhalay markuu gaboobay oo wuxuuna u sameeyey shulug midabyo badan leh markaasaa walaalihiis arkeen in aabbahood ka jecel yahay isaga walaalihiis oo dhan kolkaasay nacbaadeen isagii wayna kari waayeen inay isaga si nabad ah ula hadlaan yuusufna wuu riyooday markaasuu riyadiisii u sheegay walaalihiis iyana aad bay u sii neebcaadeen oo wuxuu iyagii ku yidhi waa idin baryayaaye bal maqla riyadan aan ku riyooday bal eega waxaynu beerta ku xidhxidhaynay xidhmooyin markaasaa xidhmadaydii kacday oo istaagtay xidhmooyinkiinnana hareeraheeday yimaadeen oo u sujuudeen xidhmadaydii markaasaa walaalihiis ku yidhaahdeen ma annagaad na xukumi doontaa amase noo talin doontaa markaasay aad iyo aad ugu sii neebcaadeen riyooyinkiisii iyo hadalladiisii aawadood markaasuu haddana riyo kale ku riyooday oo walaalihiis u sheegay oo wuxuu ku yidhi bal eega riyo kaleaan ku riyoodaye waxaan ku riyooday qorraxdii iyo dayaxii iyo 11 xidigood oo ii sujuuday markaasuu aabbihiis u sheegay iyo walaalihiisba aabbihiisna waa canaantay oo wuxuu ku yidhi waa maxay riyadan aad ku riyootay ma aniga iyo hooyada iyo walaalaha waa kuu iman doonna oo intaan wejiga dhulka saarno kuu sujuudi doonna markaasay walaalihiis ka masayreen isagii laakiinse aabbihiis maankuu ku haystay hadalkii markaasaa walaalihiis tageen inay adhigii aabbahood soo daajiyaan shakem israa'iilna wuxuu yuusuf ku yidhi miyaanay walaalaha adhigii daajinayn shakem bal kaalay xaggoodaan kuu dirayaaye markaasuu isna ku yidhi waa ekan oo wuxuu ku yidhi isagii bal tag oo soo arag in walaalaha iyo adhigiiba nabad qabaan iyo in kale oo haddana ii warkeen sidaas daraaddeed isagii wuxuu ka diray dooxadii xefroon oo wuxuu tegay shakem markaasaa nin helay isagoo duurka wareegaya ninkiina wax buu weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi maxaad doondoonaysaa isna wuxuu yidhi waxaan doondoonayaa walaalahay waan ku baryayaaye ii sheeg meesha ay adhigii daajinayaan markaasaa ninkii ku yidhi halkan way ka tageen waayo waxaan maqlay iyagoo isku leh inankeena aynu dootaan tagne markaasuu yuusuf walaalihiis ka daba tegey oo wuxuu iyagii ka helay dootaan markaasay meelfo ka arkeen isagii oo intuusan u soo dhowaan iyagii ayay ku tashadeen inay dilaan oo waxay isku yidhaahdeen bal eega kii riyada badnaa waa soo socdaaye haddaba kaale aynu dilne oo aynu ku tuurno ceelasha midkood oo waxaynu odhan doonnaa bahal xun baa cunay dabadeedna waxaynu arki doonnaa bal waxay riyooyinkiisii noqdaan oo ruubeen baa taas maqlay isagiina wuu ka samata bixiyey gacantoodii oo wuxuu iyagii ku yidhi yaynaa naftiisa ka qaadin kolkaasaa ruubeen ku yidhi iyagii dhiig ha daadinina ee isaga ku tuura ceelkan cidlada ku yaala laakiinse far ha saarina oo wuxuu taas u yeelay inuu isaga ka samata bixiyo gacantooda oo uu u celiyo aabbihiis oo waxay noqotay in markii yuusuf walaalihiis u yimid ee yuusuf ka furteen shuluggiisii kaasuu wuxuu ahaa shuluggii midabyada badnaa oo uu qabay kolkaasay qabteen oo ay ceelkii ku tuureen ceelkuna waa madhnaa oo biyo kuma jirin kolkaasay u fadhiisteen inay wax cunaan
dabadeedna indhahay kor u taageen oo waxbay fiiriyeen oo waxay arkeen safar ree Ismaaciil ah oo ka soo socda xagga Galacaad oo oortooda ay ugu raran yihiin xawaash iyo beeyo iyo malmal waxayna u socdeen xagga Masar. markaasuu Yuhuuda ku yidhi walaalihiis, maxaa faa'iide inoogu jirta haddaynu walaalkeen dilno oo aynu dhiiggiisa qarinno? kaalaya aynu ree Ismaaciil ka iibinne oo ayaynaan isaga far saarin, maxaa yeelay isagu waa walaalkeen waana jidhkeenna. walaalihiisna way maqleen isagii oo waxaa ag maray niman reer Midyaan ah oo baayac mushtariyaal ah. markaasay Yuusuf soo jiideen oo caalkii ka soo bixiyeen oo waxay Yuusuf kuwii reer Ismaaciil kaga iibsadeen 20 xabbadood oo lacag ah. oo iyana Yuusuf waxay keeneen Masar. markaasaa Ruubeen ku noqday caalkii, wuxuuna arkay inuusan Yuusuf ku jirin caalka. kolkaasuu dharkiisii dildillaaciyey. markaasuu walaalihiis ku noqday oo wuxuu ku yidhi, yarkii ma joogo, haddaba anigu xaggee baan tagaa? kolkaasay shuluggii Yuusuf qaadeen oo intay orgi gowraceen ayay shuluggii dhiiggii geliyeen. markaasay shuluggii midabyada badnaa direen oo ay aabbahood u keeneen oo waxay ku yidhaahdeen, kan waannu helnay, haddaba balgaro inuu shuluggii wiilkaagii yahay iyo in kale. wuuna gartay oo wuxuu yidhi, waa shuluggii wiilkayga. bahal xun baa cunay isagii. shakila'aan Yuusuf cadcad baa loo kala jeexjeexay. markaasaa Yacquub dharkiisii dildillaaciyey oo joonyad wuu dhaxda ku xidhay. wiilkiisiina maalmo badan ayuu u barooranayay. kolkaasaa wiilashiisii oo dhan iyo gabdhihiisii oo dhammu u kaceen inay isaga qalbi qaboojiyaan, laakiinse wuu diiday inuu qalbi qaboobo oo wuxuu yidhi, anigoo barooranaya ayaan qabriga geli doonaa oo wiilkaygii u tegi doonaa. aabbihiisna wuu u ooyey isagii. markaasay kuwii reer Midyan isagii Masar kaga iibiyeen nin la odhan jiray Bootifar, wuxuuna ahaa sarkaalkii Fircoon oo ahaa madaxii waardiyayaasha.